xogayaha koowaad ee safaaradda Soomaaliya ee dalka India Ahmed Maxamed Ahmed Xiish ayaa safar shaqo uu ku horgalayo xaaladda ardayda ee jaaliyadda Soomaaliyeed ku yimi magaalada Hyderabad ee koonfurta dalkani India. Xogayaha ayaa sidoo kale waxa uu si gooni warbixino uga dhageystay ardayda haatan dalka India wax ka barata waxyaabaha ay caqabadaha ay kala kulmaan oo ay safaaradda wax ka qaban karto iyo waliba dadka waaya araga u soo ahaa inta ay Soomaali halkan ku sugnayd oo dhageystay. Ugu horeyntii waxa kulanka casho sharafta ahaa ujeedkiisa faahfaahiyay Aamin Cali. runtii xafladda qayb badan oo kala bixi doonta oo caawasho iyo information exchange hadii la yiraahdo waxaan rabaa inaan halkan ka cadeeyo xafladan sida ay u muuqato waxa kooban dhamaan community-ga Soomaaliyeed ee Hyderabad. Maama Faadumo Ogaas Sheekh Cabdiraxmaan iyo waliba sidoo kale gudoomiyaha ururka ardayda ee jaaliyadda Suurad Maxamuud Shiil ayaa hadallo kooban halkaasi ka soo jeediyay. waxaan u baahanahay wada shaqayntii iyo xiriirkii in la adkeeyo ardaydana ay dhinacooda ka adkaato oo ay ku xirnaadaan safaaradooda safaaraddiina ay noqoto mid u dhunduleesho oo dhageysta oo isla markaas xal u taagan waxaan in badan waxaan insha Allah ta'ala rajaynaynaa ilaahayna weydiisanaynaa in badanna waa la duceeyay ilaahay nabadii noo soo celiyo haddana markaad fiirsasay wax u socdaan iyo xaaladii dee wadankii ka shirtay iyo dee koboc badan inuu jiro kala dambeyn badan soo kordhayso nidaam badanna imaanayo inkastoo Soomaalida waxay iska yihiin dad dayra isaga samaysan badanaa dadka inta badan magaalada waxaa u maraysaa inay ka warqabay safaarad waxta inay jirto ama inuu xiriir ama uu jiro wada shaqeyn ay jirto bulshada Soomaaliyeed ku nool safaaradda waxaan u maleeyaa waxaa siinay sababaya dadka qaar dhibaatooyinka ama ayaga kuma dhicin ama kama warhayaan dhibaatooyinka jira magaalada. Ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay xogayaha koowaad ee safaaradda Soomaaliya ee dalka India Ahmed Xiish oo sidoo kalena ka jawaabay su'aalo ay bulshada weydiisay. safaaradda aan beddelno oo face safaaradda idinku adeegna ka dhigo guriga ku adeeg waxaan xaqiiq hadda qaadin wax kale baas loo kala wada hadda tagtid safaaradda ka soo halkay deegaanka oo ninka Kenyatta oo ninka wadada Nigeria wada safaaradda intu toogto garaaco dilmaasi farsaxda aan ku maskakum ka لكن ما كنا وأنا بانك خطأ أنت أو citizen ليه على هذا ما citizen كابني ما أنت أصلا عليك شكرا كويس ولا مين هو تكلم أسبوع كمان citizen في الصف أو long process ما عليك أنا لو أنا أعتقد ما تقدر سفيرة الراب كراف سفير إذا شفت تكاس بس واحد وصل في سنة كلها بس أنا كده ما أنت سفير كساسية أنا ما حسنا كده برينا ده بري يوصل عند الله وعنا سفارة كلية أو سفارة عملنا كلية جوا أو تذكر ساعة وجهش تذكر وساعة محمد عبد عينته Universal TV Hyderabad.